marka aan af Soomaali ahaan ku sheego iyo wuxuu ka hadlay dhakhtarku dadkana ogeysiinayna in Indo Gargaar Hospital oo Hargeysa ku taala oo cusbitaalka ugu weyn ee imaka wadanka kaliya ee lagu furo xagga wadnaha in aanu ku guuleysanay in aanu 500 oo qof u furnay wadnaha qaar wadnaheedu xiran yahay qaar ku dhashay wadnuhu inuu furan yahay la xiray caruur ilaa 15 ah oo wadnuhu markii hore uu xidhnaa uu furnaa la xiray qaar uu xidhnaana la furay halkan waxa ugu fara badan ee aanu dadka ogeysiinayna waxa weeye in maanta alxamdulillah wixii adduunka loo tagi jiray inay dhaqtaradan senior consultantska oo nindii ugu diri jirnay maxaa dhaqtarada oo aanu intaasoo loo musaafiri jiray oo loo tagi jiray alxamdulillah inuu halkan ku qabanano haddii ay noqoto in la furo wadnaha xididada xidhan haddii ay noqoto in la xidho kuwa maxaa furan ee ku dhashay furitaanka haddii ay noqoto xididada maxaa lugaha oo aanu furnay qaar xidhnaa oo aan socon karaynin oo maanta soconaya iyo wixii kale ee wadnaha oo aan shaqaynaynin oo pacemaker waxa loo yaqaano ama bahal lagu rakibayo wadnaha gudihiisa oo ka shaqaysiinaya wadnaha oo wadnihii 20%, 30, 35 ku shaqaynayay markaa 60 iyo 70 loogu shaqaysiinay oo qofku caad u soconayo oo qofkii aan socon karaynin in markaa maxaa uu soconayo taasina waa mahad ilaahay ka bacdina dadkeena iyo dadkii ka shaqeeyay iyo dhakhtaradii hindidaha iyo staffkan Soomaalida ee jooga iyo nursingka iyo dhakhtarada Soomaalida ee cardiologist-ka ee imika iyaguna soo baxaya oo iyaguna door weyn ka qaatay iyo dhakhtarada soo refer gareynaya ee soo diraya ee wadnihii xidhnaa degdeg in loo furo maxaa u sahlaya waayo xinjirtu markay wadnaha ku samaysanto haddii 8 saacadood ugu horeeya maxaa la keeno xinjirtu waa bilix waa aragtay marka xoolaha la qalo inuu markuu dhiigu tago madhow xinjirowga uu yar yahay marka dambe bilix uu noqdo oo xinjirtu samaysanto marka dambana dad ku ceer karto adkaato marka waxa ugu wanaagsan ee in la furo markuu wadnuhu harta qaado ee wadnuhu xidhmo xinjir meesha gasho in 8 saacadood ugu horeeya in ay dhakhtaradu soo diraan dhakhtaraduna marka ay qof waanay soo diraan laakiin marka qofka uu yiraahdo waxa ay xanuunaysaa laabta ama neefta ay ku dhagan ama ay arkaan in ay meesha wadnuhu xidhan yahay waxa ugu wanaagsan ee ay qabanayaan waxa weeye inay aspirin siiyaan oo markiiba sida xujirtu ay maxaa u yara furanto isla markiiba u soo diraan oo Gargaar Hospital Indo Gargaar Hospital qaybta cardiology-ga ay yimaadaan oo markiiba la furo taa weeye ta qofku uu sanay haddii uu dib u dhaco oo qofku 3 casho ka bacdi 4 casho ka bacdi la soo diro xinjirta waa la furi karaa laakiin way adkaanaysaa oo markaas dambaysa way si adkaanaysaa marka waa alxamdulillah rabbil caalamiin maanta 8 bilood iyo 9 bilood gudahood ayaanu 500 wax kor dhaafsiisan xididkii loo furay oo ay socdaan maanta qof dhintay ma jirto qof wax xumaaday ma jirto alxamdulillah rabbil caalamiin ilaa maanta sida uu socoto waa si wanaagsan dadkuna waa mabsuud anaguna waa mabsuud dadkana waxaan ku boorinaynaa oo nu sheegaynaa dadka Soomaaliyeed haddii ay markaa dareemaan wadnuhu inuu wax yahay inay degdeg u yimaadaan oo ay la taraagareeyo inta xinjirtu ay cusub tahay ee la furi karo ee lagu furi karo wire ee stand lagu furi karo la gelin karo inay degdeg u yimaadaan maanta weeye maanta aanu dadka u sheegaynaa aanu mahadcelinaa dadka soo diray ee dhakhtaradii soo diray iyo eheladii beeshika la socday ee degdeg u keenay ee u dadaalay COVID-19 waa ogtihiin oo adduunka wuu
aad buu u dhaawacay dhaqaaluhu dhaawacay waddankuu dhaawacay wadnuhu dhaawacay oo wadnaha waxyaalaha ugu fara badan ee xidha ee xinjirta ku sameeya waxaa ka mid ah covid-19 qaar badan baana halkan noogu yimid marka waxa weeyaan iyadoo caynkaa tahay oo dadku dhaqaale ahaan haddana intii loo kari karayey ee laga dayn karayey ee aan dee khasaare ahayn ayaa haddana loo sameeyey alxamdulilah iyadoo covid-19 kaas jiro ayaa haddana si naajixa loo furay oo dadku u imanayay oo dadku maxaa ladahayey aanay marnaba ka hamsaamin marka taasna waxa mahaddaale dadka shaqaalaha iyo dhakhaatiirta iyo staafka iyo dadka beeshanka la socda ehelkooda la socday ayuu ku dadaalaya sidaas ayaanu dadka ugu sheegaynaa meeshana weli waa socotaa dadkana waxaa loo boorinayaa iyo dhakhaatiirta iyo dadka wax garanaya in ay maanta alxamdulilah meeshii la tegi jiray 15,000 oo dollar iyo 20,000 oo dollar lagu bixi jiray oo qaaran anigu aan diray ayaa 18,000 oo dollar ku soo baxday Malaysia maanta 5,000 oo dollar baan halkan isagoo waddankiisii jooga oo aan meelna tegin oo 2 casho 3 casho ku jiraya oo guriga tegaya lagu sameynaya kuwa halkaan u diri jirnaa oo kuwa maanta inoo jooga oo nasiib u yeelanay kasaasaan u sheeganaa waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu